xumadii bay hayn kari weyday dhakhtarkii bay tagtay dhakhtarku imika mishiinka degdega loo baaray shaatiga daqiiqo soo saaray lama hayn markaa waa lagu eegay waxay tiri imisa 4 saacadood sugaysaa baa leeyahay ara soo qaday bay tiri horta waa yahay aan seexdaada doontaan maqaaxi hilibka lagu cuno maartay didan bay tagtay haddana way ka soo noqotay hadhow bay magaaladii wada xanuunsan ka daba timid gabadhii baa leeyahay xageetay torta noo sheeg waxay tiri horta kaniisada waa ka soo ducaystay taa kale waa ka soo ducaystay intii baa la isku cabiray 1250 qof bay noqdeen balaas iyagii waxay sii qaadsiiyeen 5840 bay noqdeen waxaa la yiri 60% dalka Kuuriyada Koonfureed dadka qaba gabadhaas ay eersadeen alxamdulillaahi rabbil aalamiin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا ريال مركه هورت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه اللباد idinku raaliya waxaan u arkay inay tahay waajib saaran dhammaan ummadda in arrinkan xasaasiga ee adduunyadii kaga qaylisiiyay inaguna aynu kelimad ka nidhaahno waxaan u kala saaraynaa dhowr shay oo fudfudud min fadlakum dhagihina yarsiiya waa qodobka koowaad ee horta bahalkan wuxuu ka soo bilaabmay gobolka Hubei la yiraahdo magaalada Wuhan la yiraahdo ka soo bilaabmay waxaa la yiraahdaa xanuunada adduunka ugu badan ee daacuunada ah ee aad u ibtilay adduunyada waxa ka soo bilaabmaan dhanka bariga ka soo bilaabmaan waxa kamid ahaa xanuun aad u cuslaayo black death la oran jiray ama balag la oran jiray sidiisa caadiga ah oo ka soo bilaabmay dhanka ka soo bilaabmay oo ilaa iyo Yurub iyo Afrika soo gaaray bariga daacuun culus ku ahaa 200 milyan oo bini'aadana ku dhintay satarta qoris xanuunka labaadna wuxuu ahaa kaasi bakteeriya yarsiin la keeni jirtay jiirka ayaan asal u ahaa u fiirso wixii nabi maxamed inaga xarimay calayhi salaatu wassalaam oo inoo sheegay marka la gudbo bini'aadanku uunba balada la galaya kii labaad wuxuu ahaa nooca loo yaqaan fayoolaha ama small boxka ama furuq dheh ama fanta dheh kaasoo ha isaguna adduunku waxa la sheegaa inuu dilay 50 milyan agaarkeeda inaga waynu soo gaadhayo gobolada dhan loo yaqaan fanta ku dishay marka la yiraahdo waxa weeyaan xanuunkaas ahaa furuqa waxa ugu dambeeyay 41944 ayaa laga helay qofkii ugu dambeeyay magaalada Marka ee Soomaaliya da'daas ma aanan soo gaarin laakiin xafladii caafimaadka marka loo sharaxno loo qaban jiray dhaqaatiir tahay oo ku soo gaaray waa qodobka saddexaad ee ka kale khatarta keenay adduunyada wuxuu ahaa ka laga qaaday khansiirka ama laga qaaday bahalka la yiraahdo khansiirka doofaarka marka waxa loo yaqaanaa Spanish swine flu baa la yiraahdaa 1921 la dagaalkii koowaad dhamaadkiisu bilaabmay ilaa iyo dhowr saddex uu socday 250 milyan oo bini'aadan u dilay bariga waxa la yiraahdaa Isbaanishka keligii wuxuu ka dilay 35 milyan Spain waxay boqortooyadii muslimiinta dumisay Andalus ee quwadda lahayd bay ahayd waxay maamushay Latin America oo dhan imka waxa ku hadlaan Spanish bay ku hadlaan waxa ka soo bilowday wadamadaas Brazil maxay Argentina Chile waxa oo dhan bay gacanta ku haysay markay dadkoodii uu dhameeyay bahalkaasi de wadamada isku xoreysay xorbatiin bay tiri ma xukumi kartaa ciidana ma xukumi kartaa muslimiintu ma soo martay xanuunkan oo kale ha daacuunkii Amwaas loo oran jiray waa kii dhacay Umar radiyallahu anhu oo ku socda Shaam markii hore waa kii soo arkay mar labaad buu ku noqday ku noqodkii labaad oo ku socda ayaa daacuun baa dhacay Abdullah ibn Auf oo sheego ku yiri radiyallahu anhu ku yiri waxaan maqlay rasuulka leh hadaad maqashaan meel baa daacuun ka dhacay ha galina idinku kuwa ku jiraan inay ka soo bixin halkaas uu joogo ibn Khadab ka joogsaday meeshaasi waxa la cabiraa 25,000 ilaa 30,000 inay meesha ku dhinteen Dimashq waxa yiraahdaa kala badh ama ka badan baa dhintay magaaladu way faaruq bay noqotay magaaladii saxaabadii aaway Mu'aad bin Jabal Abdullah aaway barki Abu Ubayda Amir Jarrah aaway ragii ugu cuslaa muslimiinta halkaas ku tageen marka muslim iyo gal ma kala yaqaan bahalkani
kuwii rasuulka ag fadhiistay ayaa ku dhintay saas awgeed innaga waxaa lanaga doonaya in waxaan fahamno markaa noocani waa nooca hargabka keena corona la yidhaahdaa waa virus yar fayraskaa marka laga sheekeynayo berigaanu baranaynay waanu iyaabi jirnay waxaa la furayaa microscope-ka waad eegaysaa 200 jeer 500 jeer 1000 jeer marka la kordhiyo ayaa lagu dhahay waxa ila dhibicda madow ma arkaysaa waa la weynay waxaasa haddana bilaada ka dhibaya waxaa quwadda bilaada ka sheegtay ee dayaxaan tagni hawada tagni isku haysto kaasayna dhibaataynaya haddaba bahalkan maanta muxuu ka duway kuwii hore waxaa dhashay ku dhexe oo loo oran jiray hargabka caadiga waa naqaana waa kan nagu dhacmo kastaba marsanku kala mar indhaha uu dufa keena mar xumad buu keena mar cunuhu ku dhigaayo waa qof iyo xumad buu ku keena mar xabeeb buu keena waa dabeecadda ku naqaano hargabka ku naqaano weeyaan ka keena magaciisa corona waa kan weeyaan haddaba noocan oo tadawuray ayaa loo bixiyay SARS xagga bari uu ka yimid Shiinaha agaarkeeda 2003 waa la qabtay markiiba 800 qof meelaas uu dilay ilaahay bay naga badbaadiyay laakiin khatar buu ahaa waxaa kaloo ka bilaabmay Sacuudiga iyo Carabta agaarkooda nooc kaloo geeyla iyo laga qaadi jiro degdeg isna ahaayo ilaahay uu naga qabto MERS baa loo bixiyay isna ilaahay uu naga qabtay kan maanta dhashay ee COVID loo bixiyay oo coronavirus disease macnaheedu la soo daray baa loo yiri waxa la helay sanadkii dhaweed 2019 baa la helay marka 80% uu shabaha kii mataqaana corona caadiga uu shabahay hargabka keenay laakiin 20 kan dheer yaho faafidiisa degdega cilada uu keenayna way ka xoog badan tahay taasaa keenaysa marka inuu degdeg u faafo adduunyada ku dhacdo khilaafka sunnada rasuulka ee ay ku dhaceen ummadahooda ku dhaceen sallallahu alayhi wasallam uumba waxaan keenay haddii marka cilmiga aan dabaqi lahayn bari hore wax buu hagaagi lahaayeen yaan laga soo bixin meesha daacuunka diloor lahaa adduunka yaa gaarsiiyay wax diyaarad baa gaarsiisay adduunka maanta waxa laga cabanayaa San Salvador iyo Chile oo ugu fog adduunyada laga cabanayaa iyo Shiinaha agtiisii iyo Mareykan iyo Yurub iyo Afrika waa laga cabanayaa yaa keenay diyaarad baa keentay waxa soo bixina soo ma ahayn anu waxaan la yaabanahay dadkeena maanta ku dagaalamaya Ingiriisiga intay ka yimaadeen Mareykan meel ugu cuslaayo xanuun ka dhacay kullu waxaan tageynaa Hargeysa waxaan tageynaa iyo goboladii dalkan tageynaa war maxay naga soo doonayaan maalmihii masaa'ib kala jooga naga jooga war meen ahayn xaqiiqatu taas weey maxay naga soo doonay maanta kale maalmihii cuslaaba ku jirna samaaha inay joogaan weeyaan oo ummadda aanay dhibin sida oo kale waxa loo baahan yahay maanta oo kale markaynu fahamno xanuunkan uu qofka suu u faafaa anwaac ku faafaa cudurrada kale hal nooc ku faafi jireen qaar waxa loo yaqaanaa waterborne disease biyahay raacaan oo daacuunada yar ee shubanka iyo wax la mid ah kuwaas ka mid ah qaarkood hawaday raacaan airborne disease baa la yiraahdaa qufaca iyo hargabka waxaasay raacaan iyo samboorka iyo bay raacaan kuwaasna hawaday raacaan kuwa contact baa la yiraahdaa taabashada iyo istataabashada waxaas qofka laga qaadaa qaarna feeka oral balada qofkii shubanka iyo biyaha wuxuu sii daayay haduu nadaafada hagaajin waayo uu hadhow raashin iyo wax la taabto ama jeermis kala ama dakhsi waxaas ay taabtaan raashinka ayay keenaanoo iyagana dhibaato waxa kaasa keentay qaarna isku tagga iyo wax la mid ah dhiigga iyo isku rag dumarka rag wax noocaas ah keeno sida AIDS oo kale isna waa nooca kale noocan waa noocii qufacu keenaya marka qayb kamid ka uu yeeshay kii istaabashada uu yeesho kontaadkiina uu noqday kii xagga dambe laga qaadayo qofka bilaadinka hadii uu suuliga gala soo saddexdii waa la tijaabiyay saxarada qofka la baaray waa laga helay balqadkii duufkii qofka waa la cabiray waxa qofku goo muxuu taabtaa wajigiisa waxa ay maalintii 34 jeer ilaa 4 jeer buu taabtaa qofku saka taabataya isha taabataya isnaantiri wuxuu tiriyaaba aagaarka waxa taabanaysaa 4 jeer ilaa 40 jeer baa taabataa qof bilaadan ah tahay dabeedna wixii hadday ku yar taabtaan idin xaqna wax laga galaya xaqna ka soo galayna marka uu dhaadhacana wuxuu fadhiisanayaa intaasan ka hoostiisa ilaa hunguriga ayuu fadhiisanayaa qaybta loo yaqaano fariijigu fadhiisanaya halka markuu fadhiisto wuxuu ku keenayaa qufac iyo xumad buu keenayaa qofku qufacaya uu xumadoonaya waxa dhaawaa markuu ugu daran yahay qofka uu faafinayo weeyaan masaako kale ilaahay ugu ma keeno anoo yar xanuunsan oo ciladii dareemay nashaadna waan dareemaya war fiican hadan meelaan ku qufaco la kala bixi maayo badde waa dhibaato ka istaagantay marka waxa la soo qaaday marka midal baa la soo qaaday waxa la yiri maalintii ugu horeysay way garan waayeen degdegan uu faafay war waxan muxuu yahay cilmi baaris culimada isku noqotay waa bal soo qabto qof qaba waa bal balqad ka soo qaada war eega aad baa loo baaray
waxay yiraahdeen niyo malaha salaanta ku faafaya kaliya saata naga daayay hadee degdegii baa laga siiyaa waxay yiraahdeen waan eegno qof markuu hundisoodo ama qufuco dhibca ka soo yarbaxa nima saaxiibna baa ilkala markuu kaftamayo buu yiri warriyo inaan ilkala wax xasuustaa markay hor fadhiya wajiga iska masax mar ida waxba soo sii deynaya markaa uma xasuustaa buu yiri waa tabtiyo kale marka tiraado balqan biyo leh air drops baleedaa biyo yar wada ayaa soo wada duulaya dhamaan bahawada galaya 3 saacadood bi xaqiijiyeen maalintii dawladda ugu horeysay imikana 8 saacadood bi xaqiijiyeen casarka ninka nagu qufacay ilaa cishaa uu joogo masaajidka wixii hawadu ku jiraya 8 saacadood soo markaysid dhibkaas baal ku leeyahay su'aashu waxay hadaba qaabku u faafaya weeyaan tusaale wuxuu soo qaateen gabadh loo bixiyay patient number 31 gabadhaas waxa weeyaan waa bukaankii 11aad shiina bay ahayd waxay soo gashay Korea mishiinkii yara lagu eegay kiira xumadda kan xumadu muu sheegay cilmi kale ma sheego dheed buu yiri ma ornayo deedna gabadhu waxay suuqay gashay waa idaacad ba ka soo sirdinay way soo qaaday gabadhii accident ba ku soo dhacay dhakhtarkii baa hilmaamay uu eegay xumadii buu ka arkay haddana wuxuu yiri warnaagta gaariga hoos gashay jugta ku dhacday gaarigu accident kula galay malaha naxdintii iyo wixii baa isku birbiray iyo meejin erneysii daatar waa naxday buu yiri naga sii daayay idan xanuunkii bay qabtaa way dhaqaaqdo markii xumadii xoog u qabatay bay iskaanishad gashay kaanishada ku soo ducaysatay way ka tagtay haddana tu kale gashay samaahan xumadii bay hayn kari weeday dhakhtarkii bay tagtay dhakhtarku imika mishiinka degdega loo baaray 5 daqiiqo soo saaray lama hayn markaa waa lagu eegay waxay tiri imisa 4 saacadood sugaysaa baa leeyahay ara soo qaday bay tiri horta waa yahay aan seexdaada doontaan maqaaxi hilibka lagu cuno maartay didan bay tagtay haddana way ka soo noqotay hadhow bay magaaladii wada xanuunsan ka daba timid gabadhii baa leeyahay xageetay torta noo sheeg waxay tiri horta kaniisada waa ka soo ducaystay taa kale waa ka soo ducaystay intii baa la isku cabiray 1250 qof bay noqdeen balaas iyagii waxay sii qaadsiiyeen 5840 bay noqdeen waxa la yiri 60% dalka Kuuriyada Koonfureed dadka qaba gabadhaas eersadeen waa qof kaliya markaysa marka maxay ka fahmeynaa aanoo ilaahay ugu ma keena maanta qaba haddana ku qufuco deena waa sareysmaysan dhamaantiinba saa uga sababta lagu leeyahay war ururka goobaha cibaadada masaajid ha noqoto waa hergaalada kaniisada ha noqoto waa ka joojiyay bahalkii maxaa Netanyahu maxay magaceedii meelaha sina gaariska yiraahdaan ku tukadaan kanaa'isku baashi yuhuudu waxa la joojiyay goob kasta waa la joojiyay goobaha ciyaaraha goobaha sportiga goobaha mataqaana waxbarashada waa kala wada cabsoonaya marka wax kala ma waa fiditaanka degdeg u bahalku fidayo kaas horta waa qodob weeyaan qodobka kale ee muhiimka waa maxay marka la leeyahay masaaxira suuliga de waa meeshii balqankii qofkii iyo wasaqdi ku tafiyo ku cadeynayay sida oo kale suuligiina waa meeshii uu ku soo saxaroonayay inta waxaan calaamad laga qaado ku taala intaba dib baa ka iman karta marka qodobka kale ee muhiimka waa maxay meesha yaala daweyntiisu ilaa hadda dawo dhaba oo xaqiiqa looma hayo laakiin maxaa la hayaa war qofkani marka uu hunguriga ku dhufto ugu horeysa waa caadi waxay leeyihiin dadku markuu boqolleyda ku dhaco 100 qof 80% dadkaasi saf marbu ku noqda xumad iyo garaac iyo qof haribka naqaano kale umu noqonaya laakiin waxay leeyihiin 20% ku cuslaadaa 20% ku cuslaadayna 3.4% buu dilayaa markaa dadka muxuu ku dhifanay wax kala ma aha dhuuntii iyo sanbabadii waxay ka kooban yihiin saan naqaan hilibkeena cas iyo xoog galaan naqaan markaan xoolaha qalin wanaga aragnay iyo wuxuu tuumbooyinka hawada dhex yaacaya bronkiska iyo wixii la mid ah marka tira waxa soo faafinaya sanbabadaada waa hawada galaysa weeyaan tuumbadii buu soo qabanaya isagu markaasuu weliba nabarro ku sameynaya oo bararna ku sameynaya ma dhacday ma ka qaaday naqaskii qof ma qaadan kara marka waxa ma ka dejinayo qofka xanuunsan qofka qaba wadna xanuun wax kala ma aha kan buu la dagaalamaya qofka naqaskiiba ka soo bixila marka kii wadna xanuunka qabay kii xiiqda qabay uu ku siiyay uu dilay markaaba marka dadka da'da loo haystay markii hore oo wadanka Talyaaniga Shiinaha wadamadaas boqolleyda marka la cabiro waxa leedahay tahay laakiin saaka waxba isbedelay New York governorkeedii hadday wuxuu yiri dadka ugu badan oo ku dhacay 340% waa dhalinyarada loo yaqaano la yiraahdo waxa la yiraahdaa
adad hulka nimanka la yiraahdo weeyaan daada adugu waxa weeyaan ka bilaabanta 25 wixii ka sareeya way yar weynaadeen haddana mayna wax weyn may gaarin soddonku way gaareen markaa daadaas ugu badan ayuu maanta cadeeyay Mareykankii cadeeyay marka waxaan kala jeednaa inagu ma garanayno qodobka ugu dambeeya waa maxay muhiimka walaalayaal haddaba masaa'ibkaasi markay yimaadaan inaguna taxalal loo baahan yahay ka soo qaad waxaan qabaa anigu xiiq baan qabaa maye feeraha mar hore dhaxal iga duway may culays baan dareemayaa waxaan nahay waa ka fiqiigi noo fadhiyay waxaan nahay shaafiiciyaan nahay waa sunna muakkada jamco warniyahow hadaa ka yarjooga ka warrama maanta yar nasto oo masiibada isna dhinac maray oo suurtagal diinta ku ogol inta ma laga xidhin masaajidka idan xarabka waa la xidho waa la xidhi doonaa dilo dooneen waa qodobka labaad ee meesha yaala warkii xanuunsanow hargab baad ku aragtay maanta waad qufacaysaa xumad baad leedahay inaad dadka ha dhibin gurigaaga si yar joog hadduu wixii noqdana ha kuga ekaada adiga haddii uu noqon waayo hargab caadi noqdana dee uu kaa bixi doonaayo iska joog gurigaaga ummadda ha saraynin waa qodobo muhiim oo meesha ku jira weeyaan marka waxaa la bulsho weynta caalamka maxaa laga badbaadayaa iminka tan la guryaha jooga laba faa'iido ku jirta waa faa'iidada koowaad waxa ku jirta horta faafidii joojiya waa faa'iidada labaad waxa ku jira dhakhtarradii baa imtixaan galay isbitaalka inaguna waa ka hargeyso 400 sano bataal ana ka shaqeeyay isbitaalada magaalada lagu furay cusub ee waaweyn way jiraan laakiin waa 90 iyo 60 iyo 70 sano waxa soo ugu waaweyn waayahay ilaahay ma qadariyaa soo dhacay waxa soo dhacay maaha waa boqolaal bili aadana absad shay waxa lagu dhufanayaa kaliya imika bulshooyinka Soomaaliland waxaanu ku dhufanaynaa sidii caadiga insurance rate-ka caadiga la soo saaray ama morbidity rate-ka la soo saaray waxayaan 3.5 tiradana ku dhufo waxa weeyaan 3 milyan bar baan nahay ama 4 milyan baan nahay ku dhufo 122,500 qof soo dhacaysa haye sarraha ka saga yaal horta 400 sano ka shaqeynay dadka inta xigil isdiixinaya ma waxa la guryihiina jooga qofka naqasku qabto noo soo sheego weeyaan saas weeyaan waxa lagu leeyahay self isolation lagu sheegay waxa weeye xanuunkii waa laga helay waad dhibaataysan tahay guriga iska dhex fadhi dawaba looma haynba noo xargabo qolka soo xid hadhow toolana waxa weeyaan hadduu sii ku kulaado ku soo qaadayna bal laga jeedaa macnaheedu danbaana ku jirto bulshooyinka dadku ma qaban karayso hadaa daawataan sawirada Talyaaniga iyo laga keenayo Isbaaniya iyo laga keenayo waxa la keenayaa isbitaalkii buuxsamay طريقيده بوحسمي وحي ودا بوحسمي استالك هريسو بوحسمي وحي ودا بوحسمي قلبكين لما غادي لما سمينايو ninka la yiraahdo imika gofarnaka New York wuxuu ku cabaadayay warmishiina ii sameeya markaasuu Trumpna wuxuu aqbalay 2 trilyan oo lacag aqbalay haddana markay cabireen waxay yiraahdeen 2,000 oo mashiin baa la sameyn karaa labadii weekba waayo wixii marka birtii la sameeyo la saxo hada tijaabo u baahan tahay lacagta hala bixiyo laakiin waa maxay maalintii 6 baa soo dhacaysa ma isqaadi kartaa markaa isma qaadaysa marna saa awgeed waa masiibo haddaba waxaan u baahnay walaalayaal kow dhowr qodob baan u baahnay muhiim ah inaga dhexdeena inaan isqaadno horta cabsoon mayno ya ma cabsoonna qul lan yusibna illa ma kataba Allahu lana taartana min waa qodobka labaad qaariqa qofka qarqama daacuunku qofku dilo gabadha isku go'da qofka dabku haleelo dhamaan maxay ahaayeen sunnada xageeda shuhaday ahaayeen samaahan shahiidna waa tahay ku dhacdana horta ma kala ducayso ilaahay nagu ma keeno haday dhacdana adkayso hada ku dhimatana shahiid baa tahay horta intaas horta waa qodob weeyaan qodobka labaad ee muhiimka maxay inaan procedure-kii qaadano dhamaan wixii tala la bixinayaan qaadano culimadu way hadashay dhakhaatiirtu way hadleen taladii qaado hadiidin oo sunnadii rasuulka ka mid tahay waxa lagu sheegayaa khilaafka la khilaafay baa laga soo dhaqaaqay waa qodobka saddexaad waa maalintan ugu baahi badannahay midnimo ugu baahan maanta kale waxa maalinta amarka askariga la adeeco weeyaan tusaale soo qaata shiinihii amar uu bixiyo wuxuu yiri ninka baxa isaga ka mas'uula dawaasi qaanano taangi waa la mariyaa qofka wala shaqaana nin walba guriga joogay Talyaanigi baa la yeeray waa dimuqraadi kaalayo soo hoyda warada ka sharabna daabirana ka sharabna aan ka sharabna maxay gaarsiisay shalay waxaan daawanaynay in Shiina oo dhaqaatiyi Wuhan meesha balad ka dhacday ka bilaabay kamid aha dadkii wax soo duweeyay uu soo duulo tabaruc u bixiyay Shiinuhu wuxuu yimiday Talyaaniga
marka hadal buu jeeday markuu magaaladii soo arkay wuxuu war tareenadii baa shaqeynaya basaskii baa shaqeynaya ummadii baa isdhex socoto wari meelihii wax lagu cunayaa furmiyad waalantihiin haddana dhimasho inta leeg baa sheeganaysaan war dadka maamul oo controla wala control laaya macnaheedu waxaan kala jeednaa markan oo kale waa marka amarka iyo isku dumada la qaato waa maslaxadeena ku jirta ummadi jiri mayso niman yaho marka waad maqashay baan jeclahay qowm caadi marka laga sheekeenay ummadaas la soo halaagay bari hore ideen imika waxaan idin sheegayaa waxaan lagu sheegay mashiinadan ba hargeysa inta noo taalla inta buura ma taalla inta taalla burcaayo iyo ceergaaba hadii lagu tiriyo wuxuba 10 xabood ma gaadhayaan cabirna muxuu noqonayaa marka inagu waxaan leenahay waxa soo dhacay 122 kun baa soo dhacay sanadna hadeeba dhacdaba waxa loo yaqaanaa aswa ihtimaalaat worst case scenario leeyahay marka masaa'ibkan dhacan baa lagu cabiraa oo leeyahay war maxaa dhici kara maxaan ka hortagnaa lacag maxaan diyaarsanaa baa leeyahay saa awgeed waxaan u baahanahay in haddana iska hashana mar labaad dawladana aan lagu deyn kaligeedii war culimadu ay kacdo ganacsato ay kacdo maanta maalintii ugu ajar badan ba taagantihiin ninka soo iibiyo kun mishiino sanka lagu xidho afka qofka laga geliyo buufiyo ma taqaana sababadiisa oo badbaadiyo ma taqaana kun qof aakhiri adduun ba jar buu helayaa xaqiiqatan waa maalintii la iskaalmeeyay maanta kale weeye waa maalintii la isku tabarucay marka waxaan ku dhiirigelinayaa guddiyada shacabka iyo culimada tujaarta iyo waxgaradku xaqiiq maanta la kacweeyaan oo lacag la keeno oo istifaacad la keeno oo hatta bari waxa ima doonta warteendooyin baan u baahno waxa naga dhamaaday sarrihi ilaahay nagu ma keenay marka waxaan digniinta ma soo jeedinay walaalayaal ilaahay idinka horta awood ma hayno allah inaga hayo wallahi ducafaana tabar ma hayno awood ma hayno cilmigeedii ma hayno qalabkeedii ma hayno ilaahu naga hayo ilaahu sidii qoladii la oran jiray maxay idin sheega Soomaalida qoladii maxay moodi meel ka soo la maray imika koonfurta ee bariga waxa lagu yaqaan ajuuraan baa laga yaqaan adduunyada xukumi jiray xagay mareen horta ma fanta la isay masaxad maxaa la garan maayo macna waxa kala jeedaa saasa loo dabar go'aya nimayo Soomaarkaysan marka ilaahay naga hayo ubadka quruxda badan iyo odayaasha quruxda badan in naga tagaan dooni meynay ilaahu naga hayo ilaahu adaa waaxid naga hayo waa masiibo culus oo soo korodhay xalay nin baa Sacuudiga la soo hadlay wuxuu yiri horteeda waxa maraya dabaq buu saarnaa 6 gaari oo ku wax buufiya ah baab soo buufinaya buud ayo sidii booyada waaweyn waxa hor socda buuri ambulance wuxuu leeyahay dadka soo bixina gurina jooga war baahidiina anaga idinkeena fadhi ayuu leeyahay buuri wuxuu markaan kan arko umar xasuusna dalkeena xasuusna buuri duruuftan ku jirnay wax la'aanteeni ilaahu naga hay sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xabagabaygiyo ila durkiina waxaan ku soo deeyay dardargeliya hawlaha dacwada oo dadka u baaqa xumaha diida jawrkana ka diga oo dulmiga maaga macruufkana alla doonayay deeqsi ku ahaada